Magacoo dhammaystiran waa Kevin De Bruyne. Goobta dhalashada waa June. Taariikhda dhalashada waa 28 Juun 1991. Isagu waa 34 jir. Wuxuuna waayihiisa kubadda cagta ku soo qaatay dhalinyarnimadiisa kooxda Genk, kadibna wuxuu xirfadiisa ka bilaabay kooxda Genk halkaasoo uu ahaa ciyaaryahan muhiim ah markii ay ku guuleysteen Belgium Pro League 2010-2011. Sanadkii 2012 waxa uu ku biiray Chelsea balse fursado yar ayuu helay waxaana loo amaahiyay Werder Bremen. 2014 wuxuu u wareegay kooxda Wolfsburg lacag dhan 18 milyan halkaasoo uu ka noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiicneyd Bundesliga. 2015 wuxuu ku biiray kooxda Manchester City lacag rikoor ah 55 milyan. Intii uu joogay kooxda wuxuu ciyaaray 422 kulan. Wuxuu ku guuleystay 1 jeer oo Champions League, 6 Premier League, 5 League Cup iyo 2 FA Cup. Xilli ciyaareedkii 2017-2018 wuxuu ka caawiyay kooxda inay gaaraan 100 dhibcood. 2019-2020 waxa uu la simay rikoorka caawinta ugu badan hal xilli Premier League ah, wuxuuna noqday ciyaaryahanka sanadka 2022-2023. wuxuu door weyn ka qaatay 3 ley taariikhi ah. Xulkiisa qaranka Belgiumka wuxuu u saftay kulankiisii ugu horeysay 2010 wuxuuna helay in ka badan 110 kulan iyo 36 gool. Wuxuu ka qayb galay koobka adduunka 2014, Euro 2016, koobka adduunka 2018, Euro 2020 iyo Euro 2024. Abaalmarinada ugu weyn wuxuu ku guuleystay UEFA Champions League Squad of the Season oo 6 jeer ah, FIFA FIBA World Cup 11 oo 5 jeer ah, UEFA Team of the Year oo 3 jeer ah, Premier League Playmaker of the Season oo 3 jeer ah. Sidoo kale De Bruyne wuxuu 12 Juun 2025 ku biiray Napoli si bilaash ah waxaana loo soo bandhigay inuu xirto lambarka 10aad balse wuu u diiday lambarka 10aad oo horey u xiran jiray Maradona oo hadda geeriyooday. Ixtiraam darteed wuxuu qaatay lambarka 11aad wuxuuna goolkiisii ugu horeysay ka dhaliyay kulankiisii ugu horeysay ee horyaalka Serie A. Ka hor ku biirista Napoli, go'aankiisa wuxuu ahaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool, balse markuu arkay in kooxdiisa kubadda cagta Manchester City ay u dhisayso taalo weyn qalcadda Etihad Stadium, wuxuu ka laabtay go'aankiisii hore ee ahaa ku biirista kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool, isagoo doortay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Napoli. Waxaa lagu xasuustaa Kevin De Bruyne inuu ka mid ahaa furihii guulaha Pep Guardiola ama tiimka uu hogaamiyo. Isagu waxaa lagu xasuustaa inuu yahay midka ugu caawinta badan ee Premier League. Mararka qaarkoodna waxaa la isbarbar dhigaa yaa fiican Kevin De Bruyne iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo Toni Kroos oo dhawaan fariistay. Taageerayaal badan ayaana ku kala aragti duwan. Saaxiibadaba adigoo fikradaada nala wadaag labadana ciyaartoy yaa fiican.